kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qaayaha inaga mudan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo aad noola socotaan halkani waa Suldaanka TV waxaad uga barateen Suldaanka TV warar saxan oo xaqiiqda ku salaysan iyo xogihii ugu dambeeyay ka jira Soomaaliya caalamka qodobada warka ku eegi doonaan waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso Saciid Cabdullaahi Dani oo looga awood roonaada dagaaladii maalmihii la soo dhaafay ka socda Boosaaso kadib markii ciidanka BSF ay awood uga saareen ciidankii Dani ee gudaha magaalada Boosaaso waxaan idin soo gudbin doonaa xaaladda iminka sida ay tahay iyo sidoo kale halka ay kala joogaan labada ciidan wararkii ugu dambeeyay xal ay raadinayeen odayaasha dhaqanka iyo ismada oo lagu guul dareystay iyo sidoo kale xogo ku saabsan in BSF ay heleen gurmadkii ugu cuslaa oo markaasi ka yimid gobolada Puntland warka ayaan ku soo gudbin doonaa haddaba waa kuma cidda gurmadka fidisay wararkeena kalena waxa ka mid noqonaya isimada oo Dani ku tilmaamay khiyaanoole aan xishoon iyo sidoo kale in mas'uuliyadda dagaalkii ka dhacay Boosaaso dusha laga saaray Dani kulamo aan markaasi kala kac lahayn oo wili ka kala socda magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso taliyaha ciidanka BSF oo diiday inuu heshiis la gaaro Saciid Dani iyo dood adag oo dhaxmartay isaga iyo isimada Puntland warka ayaan ku soo gudbin doonaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay faragelisay xiisadda Boosaaso sida xogtu sheegayso mas'uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya ayaan ku sugan xilligan magaalada Garowe iyo sidoo kale Boosaaso halkaas oo xal looga raadinayo in la qaboojiyo xiisadda ka tagan Puntland sidoo kale waxaan eegi doonaa Somaliland oo la soo warinayo in xaalad halis badan ay ka taagan tahay gudoomiye Cirro oo markaas ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha maamulka Somaliland waxaan idin soo gudbin doonaa xaaladda markaasi Hargeysa oo la soo warinayo inay tahay mid kacsan iyo xisbiyada oo madaxa isla galay maxuu Cirro ka yiri go'aanka Muuse Biixi ku saabsan muddo kororsiga iyo sidoo kale inuu xilka ka qaado gudoomiye Khaliif gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Somaliland wararkii ugu dambeeyay Cirro lagu soo dhaweeyay Hargeysa iyo sidoo kale hadal la yaab loo ka dhawaajiyay ayaan dul istaagi doonaa saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV subscribe saaro Suldaanka si share garay oo muuqaaladan saaxiibada gaarsiisay kula daawadaan like iyo commentiga naga iloobin qaybta hoose noogu soo qor fikirkaaga saliimka iyo aragtidaada suuban adigoo markaasi ka aragti dhiibanaya wararka warbixinada iyo xogaha aynu soo gelinay YouTube-keena ee ku saabsan siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha gudaha Soomaaliya waad ku mahadsantihiin sida noola socotaan u diyaar garooba qodobadii aan dul maray oo intaasi ka dhameystiran aan ku bilowno warkeena dhinaca Puntland iyo Boosaaso ayaan ku bilaabaynaa warkeena sida markaasi xogaha kala duwan aba wararka ku saabsan Boosaaso ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda Boosaaso ayaa wali ah mid cakiran waxaana la soo warinayaa in labada ciidan la kala qaaday wallow ee dadkii shacabka ah wali ay wadaan barakaca oo dadkii ku haray gudaha magaalada Boosaaso ay markaasi xilligan baabuurta lagu daadguraynay iyadoo markale laga cabsi qabo in dagaal culus oo ka dhaca Boosaaso iyadoo markaasi labada dhinac bay diideen xalkii ay keeneen isimada Puntland wararku waxay sheegayaan in arrintaas ay tahay mid markaasi halis badan haddii markaasi aan xal degdeg la gaarin Boosaaso waxay ku dambeey doontaa gacanta BSF sida markaasi ila kala duwan ay sheegayaan wararka xilligan aynu idila hadlayno ka helayna magaalada Boosaaso waxay markaasi ay sheegayaan iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay ka taagneed xiisad dagaal oo u dhaxaysay ciidanka BSF iyo kuwa maamulka Puntland waxa la soo warinayaa in markaasi la furay wadooyinka qaar oo ay xireen ciidanka BSF ee ciidamadii isku horfadhiyay magaalada Boosaaso ayaana la kala qaaday waxaana markaasi la furay qaar kamid ah aagii markaasi maalmihii u dambeeyay ee lagu dagaalamay iyadoo meelaha qaar ee magaalada markaasi uu dib uga furmay isku socodka sida markaasi xoguhu sheegayaan wallow barakaco wali socdo oo dadku mar walba ay ka cabsi qabaan in dagaal markaasi uu ka dhaco Boosaaso dadweynaha qaarkood ayaa markaasi la arkaya iyagoo markaasi tagaya xarunta BSF iyo goobihii lagu dagaalamay oo isku socodka dib loo furay waxaana u muuqda xilligan inay markaasi dib u dhaqan gashay xabad joojintii wallow Dani uusan ahayn nin xabad joojin markaasi raba uu awood uga saaro ciidanka BSF ee gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidanka labada dhinac waa ciidamada labada dhinac ay markaasi ku dagaalameen Boosaaso oo mid walba dhankiisa oo markaasi baaritaan ku sameynaya gaadiidkii dadweynaha kadib markii dib ay u fureen isku socodka qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso talaabadan ayaa timid xilli bulshada reer Boosaaso oo markaasi waagu u bariyay sawaxanka rasaas iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan oo la isku adeegsanayo taasoo la sheegay habeenada la soo dhaafay shacabka ku dhaqan Boosaaso aysan hurdin kadib markii ogaadeen in dagaalku markaasi isku bedelay mid awood la isku sheeganay labada dhinac oo isku haya gudaha magaalada Boosaaso oo dhowr jeer eedeymo isku soo jeediyay ayaa hadda u muuqda inay si isku mid markaasi u qaateen baaqi xabad joojinta kadib maalmo dagaal xoogan oo qasaare badan geystay oo ka dhax markaasi socday gudaha magaalada Boosaaso
maalmihii la soo dhaafay wasiirada maamulka Puntland ayaa la soo warinayay inay ku sugnaayeen dagaalkan horinayeen wallow markaasi la sheegay in ay ka soo carareen wararka iminka aynu ka helin magaalada Boosaaso oo maalmihii u dambeeyay markaasi ka taagneed xiisad dagaal ayaa sheegaysa in iminka xaaladdu ay degan tahay wallow mar walba marka ka dambaysa laga cabsi qabo in ciidanku markaasi ay isfarasaaraan mar kale wallow wali ay is hor fadhiyaan ciidamadu dadweynaha qaarkood ayaa la arkayaa iyagoo markaasi doonaya inay ka qayb galaan kulamada gaargaarka ah wallow markaasi kulamadan yihiin kuwa xal loogu raadinayo ciidanka PSF iyo ciidanka Puntland oo markaasi ku wada dagaalamaya gudaha magaalada Boosaaso dhinaca kale isimada ayaa markaasi dani ku tilmaamay qiyaanoolo qaswada ah oo aan xishoon mas'uuliyadda ay dusha ka saaran wixii ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso waxayna ku tilmaameen nin markaasi dhiig caba oo u soo dhigtay inuu barakiciyo shacabka Puntland gaar ahaan Boosaaso taasoo markaasi kaleeyahay arrimo siyaasadeed sida aynu xogta ku helayno wararka qaar ayaa sheegaya in ciidanku in isimadu ay wacad ku mareen in dani uusan sii hogaami karin Puntland maadaama markii ugu horeysay ay tahay 20 sano kadib in ciidan ka tirsan Puntland ay isku xasuuqaan gudaha deegaanada Puntland dani ayaa markaasi kulamo aan kala kac lahayn wuxuu xilligan la leeyahay magaalada Garowe ku leeyahay xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka ee reer Puntland dhinaca kale Boosaaso waxa ku shiraya odayaal kale oo isimada ka tirsan waxa la soo warinayaa in isimadu ay dani ku tilmaameen ninaan ka xishoon shacabka Puntland dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faragelisay xiisada Puntland kadib war-saxaafadeedkii uu hore u soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku saabsanaa in markaasi wada hadal lagu dhameeyo arrinta balse warar kale ayaa sheegaya in mas'uuliyiin ka socda fila Soomaaliya ay kulamo gaargaar ka wadaan gudaha magaalada Boosaaso iyo sidoo kale Garowe halkaas oo xal loogu raadinayo xiisada Boosaaso xubnaha ku sugan Puntland ayaa la soo warinayaa inay yihiin xubno ka soo jeeda maamulkaasi waxaana sidoo kale xogo ay sheegayaan in mar walba marka ka dambaysa laga cabsi qaba in dani maadaama uu yahay nin ciil u qaba in dhiig u daadiyo uu markaasi dib u bilaabo dagaalka ciidankana uu ku amro inay mar kale weeraraan Boosaaso ugu dambeyntii gobolada waqooyi ee Soomaaliya markii aynu eegno Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa wacdara ka dhigay magaalada Hargeysa wuxuuna ku dhawaaqay in uu isku caleema saarayo hogaamiyaha Soomaaliland haddii Muuse Biixi ka waantoobi waayo muddo kororsiga iyo dhibaatada uu ka wada gobolada waqooyi ee Soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kalena murashaxa madaxweynaha xisbigaas ayaa shaaciyay in marnaba uusan aqbali doonin mucaaradku in markaasi ururada la furo ka hor doorashada hogaamiyaha xilli markaasi ay sharci darro ku tilmaamay arrintaas taasoo ku sheegay in Muuse Biixi uu door bidayo inuu ku hoos gabado xisbiyada maadaama doorashadu ay ka soo horeyso furitaanka xisbiyada sida markaasi ay ku doodayaan xisbiyada mucaaradka gudoomiye Cirro ayaa markaasi wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in xilligan lagu soo beego sharciga furista ururada isagoo markaasi sheegay in xisbigu aanu markaasi madaxweyne u aqoonsan doonin Muuse Biixi Cabdi haddii uu waqtigeeda ku qabi waayo doorashada sida uu hadal ku dhigay Cirro Muuse Biixi Cabdi waxaan u aqoonsan doonaa qaswade mana u aqoonsanayna madaxweyne aniguna waxaan noqon doonaa hogaamiyaha Soomaaliland sidaas waxa yiri Cabdiraxmaan Cirro sidoo kale wuxuu ku hanjabay inuu isku caleema saari doono hogaamiye haddii uu markaasi Muuse Biixi uu ka waantoobi waayo in uu doorashada waqtigeeda ku qaba waayo dibna u dhigo asaguna uu muddada dheereysto Cabdiraxmaan Cirro ayaa ka dhawaajiyay in mas'uuliyadaas dusha uu saaran doono Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha Soomaaliland doorashada waa in waqtigeeda lagu qabtaa yeelimayno in saacad lagu daro tartanka ururada diyaar garow ayaan markaasi ku jirnay diyaar baan u nahay ka qayb galno doorashada balse ma doonayno in muddo kororsi uu sameeyo Muuse Biixi Cabdi mowqifka uu qaatay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa markaasi la soo warinayaa inuu qas hor la ka bilaabay gobolada waqooyi iyadoo markaasi ay kala qaybsan yihiin golaha wakiilada xildhibaanada gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa la soo warinaya Khaliif ninka la yiraahdo in Muuse uu ugu hanjabay inuu xilka ka qaadi doono haddii uu meel mari waayo sharciga la isku haysto ee ku saabsan xisbiyada aba asxaabta wararku sida ay sheegayaan arrintan ayaa u muuqata mid walaac hor leh markaasi ka dhalisay gobolada waqooyi iyo qas iyo fawdo Muuse Biixi ayaa sabab u ah in goboladaas markaasi nabaddu ay ka jirto uu ka bilaabo dagaalo iyo sidoo kale urursi iyadoo markaasi xisbiyada qaar ay ku hanjabayaan xilligan inay weerar ku qaadi doonaan markaasi Muuse Biixi xisbiga kulmiye hogaamiyo haddii ay ka waantoobi waayaan dhibaatada Soomaaliland saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan halkani waa Suldaanka TV warkiina halkan ayaan ku soo koobaya nabadgelyo